kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha wargeysada caalamku ay ka qoreen saxada kubadda cagta Man City oo galabta horyaalka Premier League hogaankiisa loo wareegtay kulankii maanta iyo wali wararkeena kale aynu eegi doonaa saaxiibayaal muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like saara sina share garaya si asxaab badan ay gaadho haddii ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana fursaad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii aanu ku bilowno kulankii caawa runtii maanta waa maalin sabti ah waa maalin ciyaareed kulmo badan ayaa jira kooxo fara badan ay ciyaari doonaan laakiin kulankii ugu soo horeeyay Man City iyo Leicester City kulankii adkaa runtii ahaa kulan la wada sugayay Leicester City oo sanadkan runtii ay ka jaban tahay oo kooxaha ugu hooseeya Premier League kamida kaalinta 17aad ay fadhida mar kale Manchester City ay duna garaacday galabta runtii xaalkeedu waa loo saal sanadkan kooxdii Leicester City ahayd kulan adag been caawad down oo runtii Haaland ninkii Haaland waa ka maqnaa kooxdii Man City bedelkiisa Julian Alvarez 6 gool dhaliyay ayaa ciyaaray inkastoo daqiiqadii 67aad la saaray laacibkaasi oo Joe Foden oo kulankani fadhiyay bedel lagu keenay laakiin Leicester kooxda Man City waxa galabtii badbaadiyay De Bruyne oo daqiiqadii 48aad goolka u dhaliyay oo runtii 3 dhibcoodna gacanta u geliyay hogaanka kula wareegtay kooxda Man City oo kala wareegtay kooxdii Arsenal ahayd hal dhibic maanta ayaa caaw ku seexan doonta kooxda Man City Arsenal 60 dhibcood bay leedahay inkastoo kulan uu haray halka Man City iyaduna 90 ay yeelato ay hogaanka la wareegtay kooxda Arsenal caawiyada hogaanka haysa ay Man City seexan doonta kulankan Ederson ayaa kulma kubado fara badan badbaadinay waxaan arkay Man City nasiib bay lahayd Tielemans oo kubad saaruuqa birta ka jiray oo kubad halis ahayd markii dambana Ederson uu qabsanayay Ederson kulankan badbaadina fara badan ayuu ka sameeyay runtii Haaland ayaa ka maqnaa dhaawac ka maqnaa laakiin bedelkiisa Alvarez ayaa kulankani ciyaarayay kulan adag iyo Man City hogaankiisaas ay kula wareegtay laakiin waxa isweydiin mudan Arsenal kulanka Britole ay shanta galabnimo leedahay Nottingham Forest inkastoo tahay kooxda ugu hooseysa Premier League oo 9 dhibcood oo kaliya ay leedahay runtii hadana isku haleyn male oo Man City kooxdii garaacday Liverpool ahayd waa tii kulankii dhaweyd gurigeeda kusoo garaacayay markaas wax walba caqli gal Arsenal Britole ay garaaci karto Nottingham Forest isku haleyn male kooxaha horyaalka Premier League kulanka Britole ee galabta ay galabnimadka 5 ay Arsenal la leedahay Nottingham Forest maalinka bariya ay kala cadaan doontaa in Man City hogaanka la wareegto oo ay saasi toddobaadkii hayn doonto laakiin City hogaanka la wareegta oo leefraha laga guban doona sayno horaba ugu soo baranay kooxdani mar hadii uu gacanta u galo hogaanka horyaalku runtii waxba laga ma qaban karayo ana kule haduu gacanta u galo sida looga furfuraa way adagtay sanadii ugu dambeeyay markii la wareegtay si laga furfuraa way adkayd waxa leeyahay sheekadii ninkii Kylian Mbappe ahayd Real Madrid buu tagay halkan kale uu tagay waa isku soo dhamaatay Real Madrid ninkan waa ka xilxiratay Bryce yaa ka gabar badan Bryce waxa uu ka cariisan yahay markii ninkani oo heshiiska iyadoo waliba albaabadu furan yihiin oo xidiga kale ay Real Madrid ku diyaarno Mbappe ay sugayso soo dhaweyntiisa la sii qaban qaabinay oo 3 sanadood oo saxatiiba ka cariisan markaas waxa leeyahay Real Madrid Bellingham deerkan isaguna la isku wada hayo ayaa waxa uu noqday bartilmaameedka ugu weyn ee kooxda Real Madrid isaga iyo waliba garabka reer Brazil Enrique labada nin ay Real Madrid xooga saaraysa ka saxa warka sheegay Mbappe in Real Madrid uu iman karo dhanka kale waxay ugu soo wareegtay kooxda Real Madrid oo ay qorsheynaysaa inay la soo saxaato Bellingham iyo waliba waryaanka reer Brazil Enrique labadaas xidig bay doonaysaa laakiin Mbappe Real Madrid riyadiisa ahayd waa isaga ciyaaray Real Madridna uma soo jeedo in ninkani ay qaadato sheekadiisii Mbappe Real Madrid ahayd waa tagayadiina inay isku soo dhamaatay ayuu muuqataa ninkii Jorginho ahaa runtii xagaagan markuu dhamaado freega ka noqonaya kooxdii Chelsea runtii Jorginho free ayuu noqonayaa xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado
waxaana isku sii diyaarinaya kooxo fara badan oo isku haya. Warar imika soo baxaya ayaa waxay sheegayaan ninkii Georgina ahaa inuu dhinac iska dhigay dhammaan wada hadaladii kale iyo weliba heshiis inuu kooxiisa Chelsea uu kordhiyo dhinac buu iska dhigay waa leeyahay. waxaanu sugayaa in dalab ay soo gudbiso kooxdii Barcelona ahayd ee la xidhiidhnayay. dhawaana waxaan arkaynay wakiilkiisa oo Barcelona jooga, taasina waxay muujinaysaa in ninkani Barca uu hanwen yahay oo halkaasi uu doonayo inuu tago. wada hadaladii kooxaha kaleba dhinac ayuu iska dhigay, waxa uu ka horsugayaa Barca inay heshiis ay soo bandhigto oo la heshiiyo, weliba xitaa kooxiisa Chelsea inuu heshiiska uu kordhiyo xitaa waxa leeyahay meel ay iska dhigo. ninkani waxa uu qorsheynayaa oo uu doonayaa in kooxda Barcelona oo xilli ciyaareedka dambe oo ka mid noqdo oo ka ciyaaro, walow ay N'Golo Kanté ay diidayso burburyahaasi Barca ay doonayso, halkay Barca u dhimatay waa burburiye. N'Golo Kanté waxay siinaysaa markaasi Chelsea. waxaan ogeyn xagaagan ay wareerisay xagaaga soo socda Barca waxay isku sii diyaarinaysaa in wareerkii ay ku sii hayso oo qorshayaasheedu ay ka ciyaartay. iminkana waxa ay Barca ay ka caashiqday way doonaysaa in laba ciyaartoy waliba khad dhexe oo muhiim u ah ay waliba si free hadii ka iibsanayso waa war, laakiin free ay ku doonaysaa in ka qaadato sidii sanadkii horeba ay uga qaadatay Chiesa iyo waliba Rafinha ka afduubatay Dembele oo ay qorsheynaysay xitaa la Kunde oo ay Chelsea doonaysay inay qaadato ay xitaa la kor qaaday. iminkana waxay doonaysaa in N'Golo Kanté iyo waliba Georgina ay ka hor qaaday xilli ciyaareedku si free ah ka qaadato. Georgina waxa uu doonayaa in Barca uu ciyaaro oo ka mid noqdo xilli ciyaareedka soo socda. Diego Dalot ayaa waxa leeyahay qandaraaskiisu waxa uu dhacayaa isagana bisha June, waxa uu ka mid yahay xidigaha free noqon karaya ee kooxdani Man United ka yaami karaya, inkastoo kooxda Manchester United ay haysato qodob dhigaya in sanad dheeri ah ay u kordhin karayso heshiiskiisa. haddana kooxo fara badan baa doonaya oo raadinaya. Real Madrid, Barcelona ayaa la xiriirinaya oo kooxaasi ayaa aad u doonaya. waxa Real Madrid iyo Barcelona ayaa ninkan isku haya. kulmadii ugu dambeeyay horta qaab ciyaareedkiisu caadi ma ahayn, inkastoo kulankii dhawaa ee Europa League oo gool ku turtay. ninkani tan iyo markii Ten Hag Man United maadii waa kacsan yahay. Real Madrid iyo Barcelona ayaa isku haya. Man United wali kama saxeen xidiga fara badan baa jira oo ka bixi karaya Rashford, De Gea, xidigaas fara badan oo heshiiskooda ka dhamaanin kasto qaarkood ay dhigayaan qodob gacanta Man United ku jiro oo hal sano dheeriya ay ugu dari karayaan heshiiskiisa. ninkii Dani Alves ahaa waxa uu la tababaranayaa xidigaha bid ee kooxdaasi Barcelona. Dani Alves waxa uu rabaa in xulkiisa Brazil uu qaato koobka adduunka. waxa uu doonayaa Dani Alves inuu safarka xulkiisa Brazil ula galo Qatar dhawaan bilaamaya. ninkii Dani Alves ahaa halkaas ayuu ka hami weyn yahay kooxda Barcelona. waxa uu yimaadeen xidigahaas uu kula tababarto oo halkaasi uu si diyaariyo in xulkiisu uu qaato koobka adduunka. doonaya xidigahaasi loo qaadanayo inuu ka mid noqdo. Barcelona ayaa iyadu caawa kulmo waaweyn baa jira, waa maalin Sabtiya, kulmo waaweyn baa la ciyaari doonaa. Barcelona caawa waxay wajahaysaa Valencia, inkastoo caqabado fara badan kooxda Barca ay soo wajaheen oo Champions League ay ka soo hareen oo niyad jab kooxda ku yimaatay. Xaafina cadaadisyo fara badan ay saaran yihiin oo runtii xidigoodu aad ay u najiibsan yihiin. waxaan arkaynay ninkii Fatiha oo isagoo kooxdan ka baxaya oo daqiiqadaha yar ee Shaafi ciyaarsiinayo Selugsan tan iyo xil ciyaareedkoo fit buu ahaa. dhaawac uu ku marmarsiyon karaana ma jirto. waxa uu leeyahay waan baxaya, inkastoo heshiis dheer ay jirto. waxa uu ka cadhaysan xitaa Fati sababta looga doorbidey Rafinha oo dhammaantood ka fiican yahay ninkani, waayo kulamadu soo galay isagoo bedelku soo galay ay waliba goolal fiican uu leeyahay ninkii Fatiha. waxaanu doonayaa Barca inuu ka tago. haddaba cadaadisyada fara badan ee Shaafi saaran oo hadii Premier League Real Madrid ay kasii fogaateen, inkastoo ay kasii fogaato shaqadiisu ay geli karto qirinqir. haddaba Shaafi waxa leeyahay isbedel ay ku sameyn karaa shaxdiisa kulanka caawa ay kala hortagayaan kooxdaasi Valencia. waxaan leeyahay isbedel buu ku sameynaya shaxdii hore Bayern uu kala hortagay habeenka Arbacadii, iyadoo la filayo in Eric Garcia, Gavi waliba Ansu Fati ay shaxda ay ku soo laaban karaan. waa xidigii Selugsanaa Gavi iyo waliba Fati kulankaasi Bayern waa ka maqnaayeen. Sergio Busquets iyo waliba Frank Kiesa ayaa la filayaa inay kaydka la dhigo, iyadoo waliba Frank de Jong inuu ka garab ciyaari karo khadka dhexe Gavi iyo waliba Pedri. Liverpool ayaa iyaduna ciyaaraysa
Liverpool ay iska wareersan oo runtii xaalkeeda allow sahl yahay. Horta Liverpool waxayna sanadadii hore ku arki jireen aynu sanadkan ku aragnaa. Liverpool kooxaha waaweyn Chelsea iyo Arsenal iyo Man United iyo Tottenham iyo hadhibaan iyo Man City laakiin kooxaha yar waa karbaashi jirtay. laakiin sanadkan bilcagsi kooxii waaweynaa waa u fudud yahay. Man City oo kale kooxaha ugu tungoyn oo tii garaacday kulankii dhawaa, laakiin yararkii waa lagu dhibay. Leeds United, Everton, kooxihii yaryara Nottingham Forest waa lagu dhibayba Liverpool. tan hadii sii wadana xaalkeedu waa sii xumaan doona hadana kooxaha yar aan xal u helin ay ku karbaashto. inkastoo Klopp isaguna shaxdiisii oo xil ciyaareedka intii badan ku soo caalamaalay oo isbedel ku sameeyay 4-3-3 ku ciyaartay, laakiin markuu xaragnaa in 4-4-2 مع صلاح وخد دحلو هذيك سنيو inkastoo loo oran kariyo horta weeryahanad baa kooda dhaawacmay ha noqoto Luis Diaz, Darwin Núñez inkastoo soo kacay Jota oo iyagu weeryahanaas dhaawac ka soo gaaray. haddana waxa uu haystaa fursad kale oo shaxdiisa 4-3-3 ahayd uga ciyaari karo. isbedelka ugu sameeyna sabab ay noqon kartaa guulaha soo gaaray Liverpool. Leeds United waxa leeyahay Thiago Alcantara oo ka maqnaa kooxda Liverpool waxa leeyahay diyaar ayuu yahay kulankan kooxda Liverpool oo kamid noqdo kadib markii uu ka soo kabtay xanuunkii dhagaha ka soo gaaray, caabuqii dhagaha ka soo gaaray. kadib markii uu ka soo kabtay wax la filayaa kulankan shaxda tababar Jurgen Klopp Thiago Alcantara uu kamid noqon doono oo muddo kooban ka maqnaa kulankii Nottingham Forest uu ka maqnaa. runtii Thiagana waxaad moodaa in shaxda Liverpool ay adaptin ay la qabsi ay la sameynayso oo haduu ka maqnaado ay dib ku noqonayso. kulmo fara badan oo ka maqnaa oo dhaawac uu ka maqnaa bilowga xilli ciyaareedkaba runtii ninkan waa la tabay. markaas dib ayuu ku soo laabtay waa la filayaa kulanka caawina in kooxda Liverpool uu kamid noqon karo Thiago Alcantara. wararkeena ciyaar wanaagsan saaxiibayaal intiina kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.